السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan asxaabteeda quruxda badan asxaabta cusub soo dhawaa asxaabta u joogtana waa mahadsantihiin topican waxaa uga hadli doonaa waxyaabo muhiim ku ah caruurta ilmaha hooyo cunada ma ka diidaan maxaa sabab in ilmaha cunada diidaan cunugaada isku tiirsanaasho inaa bartida ama cunugaada inuu asiga wax cuno bisidida haduu gaaro bar sida qaabka wax loo cuno garee cunugaada cunug maasha Allah ku fahmo noqon doonaa dabeecad xumada waxaa keeni kara cunugaada inaa attention badan siinin ama aad la sheekaysanin xilliga cunada aadan barin ama waqti cuno oo lahayn cunugaada xilliga doonta aad siiso cunugaada wuxuu noqon doonaa cunug cunada ka diido oo mar walba xanaaqsan cunug markuu xanuunsan yahay ama markii xilliga cunada inaa u kala saartid oo joos ay siiso hooy maanta maxaa ku sameeyaa dalabkiisa aad u sameys marna dalabkaada aad sameys maanta dooqeyga waa hooy iyo cun u sheekaysid qancisid mar walbana cunada cunugaada inuu asiga gacantiisa ku cunaa muhiim u ah ka dhaaf hooy ilmaha dhabta inta la saarto cunada la siinaayo waxyaabaha ilmaha cuna diidka ama cunugaada inuu biri kamaal wax qabsan ayay sababtaa marka cunuga isku tiirsanaashada yaraanta ayaa lagu bilaabaa cunugaada marka training badan hadaa siiso cunugaada maasha Allah cunug dabeecad leh oo wax ku qaato noqonaya laakiin hadii faraq inta saartay ama dhabta cunada waa kugu guraya dhahdid ogow cunuga cuna fiican kuma qaadan doono ilmaha cuna diidkana way sababtaa ilmaha jooska la siiyo waxyaabaha jecel yahay loo sameeyo cunugaada maasha Allah ku noqon doona mar walbana hooyada inay ilmaha saaxiib ka dhigato ay mar walba sheekayso cunada markaa siinaysa faa'iidada cunada uga hadasho hooyo faa'iidadaas ay ku leedahay cunada qaado cunada waa koraysa hooyo waa ii weynaanaysa mar walba dhiirigelin badan hooyada inay siiso cunug maasha Allah noqon doona oo qurux badan oo si wanaagsan ku koro marka waa mahadsantihiin noo sabooda insha Allah noo share garee assalaamu calaykum waraxmatullahi